wargeyska sida maadeysiga wax u qora ee ka soo baxa Faransiiska ee Charlie Hebdo ayaa dib u daawacay sawir gacmeed laga sameeyay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee talabadaas oo sanadkii 2015 u horseeday in lagu qaado weerar dhimasho geystay kadib markii ay markii koobaad hore u daabaceen. Waxay arrintan imaanaysaa iyada oo maxkamad ku taala magaalada Paris ee dalka Faransiiska la hor keenay 14 qof oo lagu tuhmayay in ay caawiyeen labadii qof ee weerarka ku qaaday xarunta wargeyska ee dalka Faransa. Dadka la eedeeyay oo tira ahaan gaaraya 14 ruux ayaa waxaa ka maqnaa 3 ka mid ah iyagoo aan maxkamadda joogin, waxaana la rumaysan yahay in ay u carareen dhinaca waqooyiga Ciraaq iyo Suuriya. Kooxdaasi ayaa lagu eedeeyay in ay caawiyeen rag hubaysnaa oo weerar lagu dilay 12 ruux ku qaaday xafiiska wargeyska oo magaalada Paris ka dhacay 2015. Taftirihii wargeyska Stephen Carpenter iyo 4 ka mid ah shaqaalaha wargeyskaasi ayaa lagu dilay kadib weerarkii dhacay 2015. farshaxankii laga sameeyay nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa horseeday in taftirihii wargeyska loogu hanjabo dil ka hor inta uusan weerarka ku dhiman. waxaa 24 saac ilaalin jiray ciidamada booliiska ee dalkaasi Faransiiska kadib markii ay buux dhaafiyeen fariimaha hanjabaadyo loogu hanjabayo in qudha la dhaafin doono. taftiraha ka hor inta aan la dilin waxa uu si weyn u difaacay daabicidda sawir gacmeedka oo uu ku tilmaamay astaan muujinaysa xorriyatul qowlka. lama yaabani in sawiradana aysan ka farxin muslimiinta. wuxuu sanadkii 2012 u sheegay wakaaladda wararka ee AP, waxaan ku hoos noolahay sharciga Faransiiska ee kuma hoos nooli sharciga Quraanka, ayuu ku dooday. guud ahaan ayaa waxa weerarkaasi ku xijaabtay 17 ruux iyada oo uu socday muddo 3 maalmood ah kadib weerarkaasi ka hor oo laga carooday wargeyska sawirka uu soo daabacay. bogga hore ee wargeyska ayaa waxaa lagu daabacay 12 sawir gacmeed oo laga sameeyay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, iyadoo wargeyska uu ku dooday in marar badan laga codsaday in uu soo daabaco sawir gacmeedka tan iyo markii uu dhacay weerarkii 2015. markasta waan diidi jirnay, sababtuna ma ahayn in mamnuuc ay tahay daabicidda sawirkaasi oo sharciga ayaa inoo ogolaanaya in aan daabacno. sababta oo ah waa in la helaa arrin macquul ah oo sabab u ah arrintaasi oo micno samaynaysa, taas oo dhalinaysa dood, ayaa lagu yiri nuqul ka soo baxay wargeyska. in dib loo soo saaro sawir gacmeedka xilli lagu guda jiro toddobaadka dhageysiga dacwadda ku saabsan dadkii lagu tuhunsanaa weerarkii argagixiso ee ka dhacay bishii Janaayo sanadkii 2015 waxay arrintaasi ka dhigaysaa in laga maarmaan ay tahay, ayuu wargeyska sidoo kale ee warka ka soo baxay lagu sii sheegay. waxaa la filayaa in maxkamadda ay tagaan ilaa 200 oo qof oo dacwadda gudbiyay iyo sidoo kale dadkii ka badbaaday weerarkaasi si ay cadeymaha u horgeeyaan maxkamadda, sida uu ku waramay raadiyaha Faransiiska ah ee RFI.